Toogashadan ayaa timid kadib markii dagaal gacan ka hadal ah uu dhexmaray lamaanaha wada jiray. Ibrahim Maxamed Cali maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ayaa habeenkii xalay ahaa abaare 11 habeenimo xaaskiisa ku dilay xaafadda Hanti-wadaag oo kamid ah afarta xaafadood ee magaalada Jowhar. Kadib dagaal gacan ka hadal ah oo lamaanahu dhexmaray ayaa sababay in dhaawac dhanka madaxa uu soo gaaro Ibrahim Maxamed Cali maareeyaha garoonka diyaaradaha ka oo ugu dambeyn xaaskiisa ku togtay barta. Lillaah wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan ka taxsiyeynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timiday gabadhaanyi jannatul firdaws Allah ka waraabiyo. waxa waaye amar ilaahay wax ku dhaceen. waxaan leenahay inta qaraabada inta qabiila inta dalka joogta inta dibadda ku jirta oo maaragta ahalka ilaahay maaragta sabar iyo iimaan saadaqa hasi. Dhuxul Cali Jeelo oo kamid ah ehelka marxuumada geeriyootay ayaa saxaafadda u xaqiijiyay in hinaaso marxuumada dhankeeda ah oo uu habeenay kale la guursaday ay ka dambeysay dagaal ka sababay geerida marxuumad Jamiila Sheekh Cali oo da'deedu lagu qiyaasay ilaa iyo 32 sano jir uurkana ku siday uwad 6 bilood jirsaday oo xilliga ay u lahayd maareey Ibrahim Maxamed Cali. horta walaaxiska mucjisa rabbaani yaha dhacay oo ka yimiday wiil iyo gabar isqaba ilma adeerna ah labadaba aniga ilma adeeran la ahay adiga bini aadanka shaydaan la xiriiro waa isqalaafeen murun dheer kadibna waxa dhacday in gabadhii ay wiilkii wax ku dhifato markay ku dhifatayna wiilkii waxa alla qadiray inuu xabad ku dhifto xabadii inuu dhimato gabadhii saacana soo aasayna anigu adeerkeed baan nahay asagana faantiisa meel dheer ma jiro ilma adeer baan nahay wuxuu ahaa maareeyihii aeroboortka Jowhar muranku wax iska masayr waay dumar iyo wax saas adiga wixii wiilku warnaa gabar u guurishay isla shalay wax masayr ka bilaayay marka xaas labaad oo shalay aroosay arrintaas wax ka yimid dhacdada dil ee noocaani oo kala ah dhexmartana lamaana wada jira ma aha mid ku cusub dhagaha dadka magaalada Jowhar balse mid haatan ayaa noqotay mid ugu hadal haynta weyn oo dadka deegaanka iyo waliba gudaha magaalada Jowhar si weyn lagu hadal hayo. Cabdi Ahmed Maclow, muuqaalbahiyaha SBC magaalada Jowhar.